kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada meel walba joogtaan waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa wararkii u dambeeyay Soomaalida iyo caalamka waxaan soo qaadan doonaa qodobo waaweyn oo la xiriira dagaalada ka socda waqooyiga dalka Itoobiya dagaal culus ayaa waxa lagu soo waramayaa in uu ka socdo deegaanka xuduudda ku yaala Suudaan iyo Itoobiya dadka deegaanka ayaa ku soo waramaya dagaalka in la isku adeegsanayo hubka culus iyadoo oo dagaalku uu ka socdo Jabal Sukar oo ku yaala nawaaxiga magaalada Matema ee deegaanka Amxaarada dagaalka ayaa lagu soo waramayaa inuu u dhaxeeyo ciidamada dawladda oo garab ka helaya xooga Fano ee Amxaarada iyo kooxda TPLF oo halkaasi dagaal culus ku dhaxmarayo Suudaan ayaa bishan horaanteedii waxay ka digtay dagaal ka qarxa xuduudda Suudaan iyo Itoobiya waxaana lagu soo waramayaa in maanta xuduudda Suudaan ay soo dhoobtay ciidamo aad u fara badan dhinaca kale TPLF oo qaaday tallaabo la yaab leh iyada oo dagaalo culus ay ka soo cusboonaadeen dhanka xuduudda Suudaan iyo Itoobiya walina ay ka socdaan dagaalo culus xuduudda Tigreega iyo Eritrea dowladda Mareykanka ayaa hanjabaad kulul hawada u soo marisay dalka Eritrea iyada oo sheegtay in ay joojiso Eritrea colaadda ay ku horinayso Itoobiya isla markaana ay ka qayb qaadanayso waxayna Mareykanku ugu baaqay in Eritrea ciidamadeeda ay sida u dhaqsiyaha badan kala baxdo waqooyiga Tigreega dhanka kale waxaan eegi doonaa dagaalada meelaha ay ka socdaan iyo xaaladaha u dambeeyay ee waqooyiga Itoobiya iyada oo duqeyn aad u culusna ay ka socoto magaalada Maqale waxaan eegi doonaa sababta ku qasabtay TPLF in waqti xaadirkan ay qaadato go'aanka lama filaanka iyada oo xaaladu ay marba markas dambe sicirka isku sii shareerayso haddii aynu eegno dhankaas iyo dowladdeegaanka Soomaalidana maxay tahay khatartii adkeyd ee uu ka badbaaday madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida iyada oo safarro ku marayo gobolada qaar ee dowladdeegaanka Soomaalida dhinaca kalena ay kooxda Al-Shabaab la soo warinayo inay ku sugan yihiin gudaha dowladda deegaanka Soomaalida iyadana xog faahfaahsan ayaan idinka haynaa dhanka kale madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto oo shaaca ka qaaday tallaabo la xiriirta Soomaaliya oo uu qaadayo haddaba maxay tahay tallaabadaasi barnaamijka ayaad ku maqli doontaan daawadayaal qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaan halkan ku soo qaadan doonaa waxaana barnaamijka qaybiga la saaxiibka waxaan oo si dhow la socday arrimihii u dambeeyay Soomaalida iyo caalamka waxaana ugu horreyn soo dhawow aad iyo aad baa mahadsantahay leys haddii aan ku horreyno waqooyiga Itoobiya dagaalo cusub baa ka soo cusboonaaday TPLF waxay qaadatay go'aan lama filaan ah dowladda Mareykankana waxay u hanjabaysaa dalka Eritrea haddaba maxay tahay adigoo bal noo soo koobaya xaaladihii u dambeeyay ee dagaalada ka socda dalka Itoobiya ilaysow aad iyo aad baad u mahadsan tahay tan iyo intii xalay ay soo baxday warkii aadka u cuslaa ee ay qaaday xooga TPLF ay qaadatay ama tallaabadii ama go'aankii adkaaba ay qaadatay oo ku saabsanaa dagaalka ka socda waqooyiga dalka Itoobiya waxaa soo kordhay weeraro culus oo dowladdu ay ku ekeysay dhammaanba deegaanada ee tuhunka ay kaga qabto inay ku sugan yihiin xooga TPLF dowladda oo maalin ka hor sheegtay in ay TPLF u nuglaatay dagaalka isla markaana mar dhow ay gacmaha taagan doonaan ayaa haatan waxa ay weeraro iyo waliba dagaalo cusub ay dowladdu ka bilowday deegaanada xuduudda dhaca kuwaasi ama xuduudda dalka Itoobiya waliba Suudaan oo ay ku sugnaayeen ciidamo aad u tiro badan oo ka socdo deegaanka Tigreegu xalayto war lama filaana ayay soo qaateen warkaasi oo dhammaanba inta badan beesha caalamka ay soo dhaweeyeen waxaana warkaasi si weyn u soo dhaweeyay ergeygaarka ee wada hadallada yacni ka dhexdhexaadinayay dalka Itoobiya iyo sidoo kaleeto xooga TPLF ee dagaalka adag kula jiray meelaha sida tooska haatan dagaalka uga socdo haddii aynu dadku bayaabino waa aaga ee Jabal Sukar ee nawaaxiga ama agaarka magaalada Matema ee deegaanka Axmaarada taasina waxay ku tusaysaa in halkaasi ay ku sugnaayeen ama gacan ku haynteeda ay hayeen xooga TPLF-ta oo si weyn iskugu ballaariya dabcan guud ahaan deegaanka Axmaarada iyo waliba kan Canfarta laakiin TPLF waxay sheegtay in gebi ahaanba dagaalka ay soo afjari doonto isla markaana dagaalku intaa ka badan uu sii socon karin maadaama sanad cusub dalka Itoobiya ay galeen oo 2015 haatan ay u bilaamay waxa ay sheegeen in ay haatan u diyaarsan yihiin inay qaataan dariiqa nabadda wax walba oo la kala tabanayana dabcan lagu dhameeyo miiska wadahadalka laakiin arrintaasi gebi ahaanba ma aysan TPLF sheegin goorta ay soo afjari doonaan dagaalka iyo waliba qaabka lagu soo afjari doono laakiin arrintu waxay u muuqataa in xooga TPLF ay ku jabeen dagaalkii isla markaana ay gacmaha taagteen laba beri ka hor sidaan hore u sheegayba waxaa hadlay taliyaha guud ee ciidamada dalka Itoobiya waxaana uu sheegay in TPLF xilligii dagaalka ay ku soo biirisay ama dagaalka ay bilaabaysay ay ahaayeen 250,000 haatanna ay marayaan
40,000 oo kelita 200 waa la leefay ayuu yiri taliyaha oo aad mooday inuu ku faantamayay ama faan ay ka ahayd xasuuqa iyo weliba baabiinta ummadda Ethiopiaanka ee gebi ahaanba cagta la mariyay haddana taliyuhu waxa uu sheegay asagoo si jees u hadlayo in TPLF maalin dhow ay gacmaha taagan doonto waana arrintii midda maalinta taagan walow dhammaanba beesha caalamka ay soo dhaweeyeen saan hore u sheegay oo ergey gaarka iyo weliba midowga Yurub dhammaantoodba ay soo dhaweeyeen dhanka kaleeto ilaysow wadahadallada waa ay socdaan waxay ka socdaana waddanka Djibouti walow si rasmi aan loo shaacinin laakiin haddanana wadahadalladu waa ay socdaan waa kuwo laga gaari kara midho dhal maadaama TPLF haatan ay gacmaha taagatay waxayna u muuqataa dowladdu inay haatan iyadoo arrintaasi ka faa'iidaysanaysa inay xooga TPLF meel kasta iyo gud kasta ay ku dhumaalaysanayaan inay rabto inay ka faa'iidaysato maadaama ay gacmaha taageen hub ay haysanin wadamadii taakuleynayay ee garab taagnaa ee Maraykanku ka mid ahaa Masar Suudaan ay ka mid ahaayeen gebi ahaanba haatan aad moodo in ay godkooda biyo ugu galeen walow Maraykanku marka horeba board isku qarin u waday oo dhinacna wadahadalladu ka waday dhinacna waa iyaga huweynayay haddanana arrintu waxaad moodaa inay marayso baraka ma leh waa tahay maxay tahay go'aankan TPLF keligeed ay qaadatay ee xabad joojinta halka dhinaca hore waxaan ogeyn dowladda Itoobiya in xabad joojin hal dhinaca ay muddo waday balse markii dambe ay dagaalka toos u gashay hadda xabad joojinta ay TPLF ku dhawaaqday dowladda Itoobiya ma ka hadashay oo ma soo dhaweysay mise dagaalka wali way sii wadaa iyadoo ognahay inta ay xabad joojinta ku dhawaaqday kooxda TPLF in dagaaladii ugu cuslaa ay dhacaan xalay ilaa iyo maanta dabcan taliyaha guud ee ciidamada dalka Ethiopia marar badan waxa uu ku soo celceliyay in uu qaadan doono tallaabada ugu adag ee la rabo in TPLF wadanka laga ciribtiro isla markaana lagu soo gabagabeeyo dagaalkooda marar badan oo uu la hadlayay warbaahinta waxa uu sheegay ama uu ku hanjabayba in TPLF weligood aysan u adeegsanin gacan bira laakiin haatan ay adayga iyo Ethiopia waxay tahay la tusi doono xooga TPLF dabcan arrintii ayaana dhabowday TPLFna kulaylka ayaa gaari baa la dhihi karaa ilayso waxaan ognahay ciidamo isku dhafa inay ka dagaalamayaan xuduudda deegaanka Tigreega iyo tan Eritrea taasi oo ku keenay culayska keenayba TPLFna ku khasbay inay gebi ahaanba ay qaataan wadada nabadda dhanka kale TPLF waxa ku khasbay inay wadada nabadda qaataan duqeymaan kala joogsi lahayn oo ka socdo gudaha deegaanka Tigreega kuwaasi oo lagu dhibaataynayo dadka maatida ee ku dhaqan magaalada weyn ee Makale Almata iyo waliba magaalada Adigrid marka iyadoo intaasi jirto magaalooyinka waaweynaba dhulka lala simay TPLF waxay ku khasbanaadeen dhaqaalahiina laga xiray koronto ay haysanin shidaal aysan jirin taangiyadii iyo baabuurtii ay wateen shidaal la'aan ay la taagan yihiin dhibaatooyin iyo musiibooyin kala duwan ay ku habsatay xitaa lacag hadday helaan waxay ku soo gataan ama waxay soo dhoofsan karaan aysan jirin khasab waxa ku noqotay inay gebi ahaanba wadada si nabada ay ku qaataan arrintaasi ayaana khasabtaa dhihi kara dhanka kaleeto wadamo badan oo ay u malaynayeen inay dagaalka ka qayb qaadan doonaan islamarkaana hub iyo waxun u keeni doonaan ayagana gacmaha ayay ka laabteen oo waxay arkeen culayska TPLF ay dhex dabaalanayso waxaa jirta iyadana waxyaabo badan oo ay wadeen wadanka Masar iyo Suudaan ay ka mid tahay in mucaaradka la hubeeyo oo deegaano badan oo dalka Ethiopia ka tirsan ayagana laga abuuro colaad sida tan Tigreeg iyo Axmaarada Tigreeg iyo wadanka andhe gobolka Canfarta iyo waliba gobolada kale ee Gambeela iyo Bishanguul iyo waliba gobolkan asagana Oromia oo dagaalo xoogan ay ka socoto laakiin Suudaan iyo Masar arrintaasi way ku guuldareysteen walow Suudaan iyadu ay wado dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay rabto inay ku fashiliso nidaamka ka jira magaalada Addis Ababa ee Abiy Ahmed laakiin arrintu waxaad moodaa inay haatan TPLF mar haddii laga guuleystay inay jabhadaha kalena cagta ay marin doonto ciidamada dalka Ethiopia oo ayagu haatan u muuqdo kuwa carcartoodii iyo waliba adaygoodii hore lagu yaqaanay la soo baxay maxay tahay hanjabaadii cusleed ee Maraykanku uu hawada u mariyay Eritrea maxay tahay sababta xilligan ku soo aadisay iyada oo TPLFna ay qaatay xal nabadeed dowladda Ethiopia ay doonayso in arrintan lagu dhameeyo hadal uu xilligan Maraykan ugu baxbaxsanayo Eritrea ilayso saan ognahay Eritrea waxa ka taliyo kaligi talis haysto muddo 40 ama 30 iyo dhowr sanaba ah waxaana jirta in marar badan Ethiopia dagaaladii ka socday ay Eritrea marnaba nabad ugu jirin Ethiopia nabada waxa sidoo kale tan weyn ciidamada tira badan oo ka socdo gudaha wadanka Eritrea inay ku sugan yihiin Ethiopia taasi oo ka qayb qaadanaya dagaalada lagu jiro
kooxaha TPLF iyo Ola. Arrintaasi marar badan waxa ay sii adkaysay walaaca laga qabo ama rajadii laga qabay wadahadaladii halka dhinacaha ee dowladda Ethiopia marar badan ay ku baaqaysay. waxaana inta badan Ethiopia u sahlay in wadahadaladani ay daba dheeraadaan dagaalku uu muddo qaato wadanka Eritrea ciidamadiisa oo ku sugan gudaha dalka Ethiopia oo ayaguna wada Argos iyo waliba Beegsi ay ku hayaan qoomiyadda Tigreega iyo waliba qoomiyado kale oo degan wadanka Ethiopia. Dhanka kaleeto Mareykanku hanjabaadihiisa iyo waliba asagoo in badan ay dowladda Ethiopia ku eedeysay inuu Mareykanku TPLF xiriir dhow la leeyahay isla markaana u dhaqaale iyo waliba hub uu siinayo. Haddana waxaa soo baxaysay digniino kala duwan oo Mareykanku uu dirayo wadamada sida tooska dagaalka ugu lug yeeshay ka mid tahay Eritrea oo ciidamadeedu aan sheegnay inay ku sugan yihiin gudaha dalka Ethiopia. 2 beri ka hor ilaa 3 beri ka hor madaxweynaha dalka Eritrea Afwerki ayaa sheegay inuusan marnaba gorgortan ka galaynin nabadda dalka Ethiopia iyo tan Eritrea. waxaana uu sheegay in TPLF iyo waliba cid kasta oo isku daydo in ay soo fargeliso nabadda dalka Ethiopia iyo sidoo kale Eritrea iyo wada noolaashada iyo wadajirka labada dal in ay gacan bira ay u adeegsan doonaan. Isla maalin kadib wuxuu soo dhoolatus ku sameeyay magaalooyinka waaweyn ee dalka Eritrea. dhanka kale 2500 oo askari ayaa laga soo geliyay xuduudda Canfarta iyo sidoo kale tan Eritrea. ciidamadaasina haatan waxay ku sugan yihiin ama ay pressure dagaal iyo waliba duulaan ay ku qaadeen kooxaha TPLF qaybaha ay kaga sugan yihiin Axmaarada iyo waliba Canfarta. si kastaba ha ahaatee Mareykanka hanjabaadiisa waa mid ayadu aan waxba ka taraynin walow Mareykanku uu qayb ka yahay wadahadalada haatan socda sida qarsoodiga ugu socda xooga TPLF iyo waliba xukuumadda Abiy Ahmed. haddana Mareykanku eedo badan iyo waliba dhaleecayn badan ayay u soo jeedinayaan wadamada Eritrea iyo sidoo kale wadanka Ethiopia. ugu dambeyntii dagaalada dalka Ethiopia hadda waqti xaadirkan xagee ka socdaan sidoo kale jabhada cusub ayaa la sheegayaa in ay iyaguna bilaabeen dagaalka dhana dowladda Ethiopia. aad iyo aad baa mahadsan tahay tan iyo intii xooga TPLF ay qaateen go'aankan adag ee ah in gebi ahaanba ay joojiyeen dagaalka ay kula jireen ciidamada militariga dalka Ethiopia kuwa Axmaarada Canfarta iyo waliba ciidamada kale dowlad-deegaanada ee jooga furimaha hore dagaalka lagula jiro xooga TPLF. waxaa soo baxaya warar la xiriira in ururka Ola ay bilaabeen dagaal ka dhana militariga dalka Ethiopia waxaana ay qabsadeen qaybo ka mid ah deegaanka Axmaarada. walow xooga TPLF labadii beri ee ugu dambeysay ay ku hanjabayeen inay ku wajahan yihiin caasimadda dalka Ethiopia haatan ay joogaan goob aan aad uga dheerayn caasimadda dalka Ethiopia. waxaa jirtay in 2 beri ka hor ay qabsadeen fadhiisimooyin ciidamada militariga dalka Ethiopia ay ku laayeen agagaarka magaalada caasimadda ee dalka Ethiopia iyo waliba deegaano kaleeto. waxaa sidoo kaleeto ayna soo baxaysay inay qabsadeen warshadaha hubka ee dalka Ethiopia qaybo ka mid ah iyo waliba inay qabsadeen magaalooyin aad ugu dhow caasimadda. waxayna hanjabaadoodu ahayd inay qabsan doonaan caasimadda dalka Ethiopia ama geli doonaan ama khalkhal gelin doonaanba. waxaa sidoo kaleeto ayna dagaalo ay ka socdaan aaga Humayra ee xuduudda wadanka Suudaan iyo waliba kan Ethiopia. dhanka kaleeto waxa ay dagaalo ayagana socdaan oo dowladdu ay weerar ay qaaday ay ku qabsan rabtaa agagaarka magaalada Sokoto. ilaysow markii hore waxaan ogeynay xooga TPLF ay weerar lahaayeen oo deegaano ay qabsanayeen ururka Ola oo sidoo kale tasiqay laakiin hadda dowladdii ayaaba la qaban layahay oo yaacayso oo rabto inay gebi ahaanba dhulkii xooga TPLF ay gacanta ku dhigeen ay qabsadaan. hagaag haddii aynu aadno dhankaas iyo dowladdeegaanka Soomaalidana waxaan ogeynay in dhawaan kooxda Al-Shabaab ay weerar ku soo qaaday dowladdeegaanka Soomaalida isla markaana weerarkaasi lagu jabiyay xooga Al-Shabaab lagana saaray deegaanka. haddaba dhulkii Al-Shabaab ay soo galeen deegaanka Soomaalida ayuu madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisaba iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo madaxweynaha deegaanka Soomaalida uu safarro ku kala bixinayaa dhulkii dhawaan Al-Shabaab laga saaray ee gobolka Afdheer. haddaba maxay tahay ujeedka madaxweynuhu halkaas u tagay muxuu la kulmay xaaladii u dambeeyay adoo noo soo koobay. aad iyo aad baa mahadsantahay Ilaysow. madaxweynaha dowlad-deegaanka Soomaalida ayaa shalay safar dheer oo uu ku tirinayo dhammaanba deegaanada ay ka kooban tahay gobolka Afdheer iyo waliba goobihii ay ka dhacday dhibaatada bishii aynu soo dhaafnay taasi oo ururka Al-Shabaab ay xoog ku soo gashay gudaha gobolka Afdheer isla markaana ay dhibaatooyin kala duwan ay ka geysatay walow lagu jabiyay markii dambe. madaxweynaha dowlad-deegaanka Soomaalida ayaa gaaray magaalada Aato iyo waliba magaalooyin kaleeto ay ka mid tahay Baarey, Hargeysa iyo waliba Ceelkarri oo maalmihii ugu dambeysay baa lagu sheegay qaybo ka mid ah ururkii Al-Shabaab ee soo galay gudaha dowlad-deegaanka Soomaalida. waxa uu madaxweynaha shalay galay halis aad u adkayd oo ahayd in diyaaradii raadeerka uu ka dhumay isla markaana gebi ahaanba uu waayay degmadii
baarey ay ku socdeen kadib markii raadeerku ka dhumay halkaasi ayayna xilli dambe ay imaadeen ayagoo aad u jahwareero islamarkaana rafaaday waxaa sidoo kaleeto madaxweynaha uu bareeray khatar aad u adag oo ogna gobolka afdheer qaybo ka mid a inay ku sugayiin ururka al-shabaab islamarkaana xilli kasta ay soo geli karaan in uu madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida uu isku dayey inuu dhammaanba shacbiga gobolka afdheer oo uusan weligii hor imaanin oo maanta hortago qaybo ka mid a gobolka degmada baari oo kale iyo ceelkari ma jirin labadii madaxweyne ugu dambeysayba wax tegey ama saddexdii madaxweyne baan dhaho wax tegey ma jirin laakiin asagoo khatartaasi ayuu u bareeray degmada ceelkari waa meesha kelita ee dowladdeegaanka soomaalida leh waterfalls ama yacni bilic aad u qurux badan leh oo biyahan qulqulaya iyo buuraha biyaha ka qulqulayaan leh ama deegaanka soomaalida maaha deegaano badan oo dalka etoobiya intooda badanba ma laha maadaama dalxiiskaas ay ku wacan tahay oo ay tahay degmooyinka aadka ugu quruxda badan dhulka dowladdeegaanka soomaalida madaxweynuhu waa uu tegey waxaana uu soo dhagax dhigay mashaariico badan oo madaxweynayaashii asaga ka horreeyey ay dhagax dhigeen wax la qabtayna aansan jirin ballanqaadiyo aan waxba ka jirin intuba shacbiga dowladdeegaanka soomaalida gaar ahaan gobolka afdheer waa ay soo dhoweeyeen laakiin waxaynu sugnaaba waa ballanqaadyadaasi aadka u tirada badan ee madaxweynaha uu soo galay sidii lagu fuliyo ayay shacbigu sugayaan ayagoo weliba rajo fiican aan ka qabin maadaama madaxweynayaashii hore imaanaya ayaga laftirkooda ay ballanqaadyo noocani oo kalaa sameeyeen gebi ahaanna wax ay u qabteen aysan jirin madaxweynaha dowladdeegaanka arrinta kalita shacbigu ay ku ammaanayaan waxaa weeye inuu ka dhabeeyey imaatinkii uu sheegay dhammaanba deegaanadaasi u ballanqaaday inuu tegi doono inuu tegey laakiin soo gelitaankiisii madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar iyo weliba isbedelkii dalka dhacay waxa uu ballan qaaday inuu dhismayaal aad u tiro badan oo shacabka loo dhisayo iyo weliba iskuullaha dheeraada iyo xarumihii dowladda in laga dhisi doono gobolka afdheer gaar ahaan caasimadiisa hargeyle laakiin intuba wax ilaa iyo xilligan la qabtay 4 sano meesha u fadhiyo ma jirto waana arrinta shacbiga gobolka afdheer ay ku dhaliilsan yihiin madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida si kastaba haatee madaxweynuhu weli waxa uu ku sugaya gobolka afdheer oo weli ay ka jiraan khataro kaleeto oo ka imaan kara dhanka ururka al-shabaab iyo weliba kooxaha kaleete ku dhumaalaysanaya aad iyo aad baad u mahadsantahay daawadayaal waxaan intaas kusoo koobaynaa barnaamijka komnaani ku falanqeynayna xaaladihii u dambeeyey ee dagaalada ka socda waqooyiga dalka Itoobiya iyo guud ahaan tan intaan barnaamijkan kiisa xiga aan halkan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo